gabar u dhalatay dalka Sacuudiga oo 35 jir ah oo macluumaad ka ahayd mid ka mid ah iskuulada dalkaasi ayaa waxay guursatay nin 35 jir ah oo da'deedu kala ah laakiin in muddo ah wax ma aysan dhalin. kadib dhakhtaradii ayaa waxay ugu bishaareysay inay xaamilo tahay. aad baan u farxaday markii ay dhashay cunugii ugu horeeyay. ninkeeda ayaa wuxuu keenay qaadimad wiil ay dhashay waxayna u bixisay Maxamed. qaadimadii loo keenay ma aysan ahayn muslimad. 3 bilood kadib waxay ku laabatay shaqadeedii iskuulka, laakiin waxaa loo sheegay in wiilkii Maxamed yaraa uu geeriyooday isagoo 4 bilood jira. gabadhii shaqaalada ahayd ayaa naagtii niyad u dhisaysay, niyad u jijinaysay. muddo kadib haddana waxaa dhacday inay xaamilo noqoto, waxayna dhashay wiilkaasi waxaa loo bixiyay mar kale Maxamed. wax walba oo shaki keeni kara iyo wixii kale dhan iska ilaawday markaan Ilaahay ay tala saaratay. 1 bilood kadib haddana arrin la yaab leh ku dhacday. cunugii wiilkii Maxamed ah oo ka geeriyooday sabab la'aan ayuu geeriyooday. aad bay u murugootay. haddana gabadhii shaqaalada ahayd ayaa sabar siinaysay oo niyadda u dhisaysay kamana aysan shakin. kadib shaqadeedii ayay iska aaday. bilooyin kadib macluumaadii ayaa mar saddexaadna Ilaahay uuray qaaday. laakiin arrinta la yaabka leh waxay tahay gabadhii shaqaalada waxay ka codsatay inay safar tahay ee dalka ka tegayso, laakiin waxay ka codsatay inay u kaadiso ilaa ay ka keenayso shaqaale cusub. kadib shaqaale cusub ayaa loo keenay. isbuuc ayay shaqadii barbaraysay. macluumaadii iyo gabadhii shaqaaladii hore ayaa suuq isku raaceen si ay ugu soo adeegto hadiyooyin iyo alaab inay u soo iibiso maadaama dalkeeda u socoto. laakiin gabadhii shaqaalada cusbeed ayaa waxay aragtay gabadhan oo loo soo adeego alaab badan loo keenay. muddo yar kadib safarkii iyo boorsooyinkii markay xiranaysay, shaqaaladii cusbeed ayaa waxay u tagtay haweeneydii guriga lahayd iyadoo dhinacya iska fiirfiirinaysa. waxayna ku tiri macluumaadii, arrin yar baan rabaa inaan kuu sheego, man aqaana waxaan dhihi doono, ii sheeg. waxay ku tiri horey caruur miyaa kuu joogi jirtay? macluumaadii ay tiri haa, caruur ay joogi jirtay wayna ii geeriyoodeen. gabadhii shaqaalaha cusbeed waxay ku tiri sababta ii geeriyoodeen caruurtaasi ma taqaanaa? macluumaadii aad bay u walwashay, murugootay. waxayna ku tiri ii sheeg waxa dhacay, ii sheeg. waxayna ku jawaabtay, markaad arkay si aad gabadha shaqaalada u suutinaysay oo macluuminaysay, aniga arrintaasi inaan u dulqaato waa awoodi waay. laakiin gabadhaada shaqaalada hore waxay samaysay in caruurtaadii ay dishay. waxayna igu tiri haddaydan caruur jeclayn caruurta dil. anigana marka arrintaasi ayaan u adkaysan waayay, iyadoo ilmihii hore dhintay sumaysay, saas darteedna u geeriyooden. macluumaadii aad bay u xanaaqday, aad bay u carootay, madaxay qabsatay, aad bay u ooysay. waxaa dhacday inay gabadhii shaqaalaha ahayd ay qabatay, garaacday, madaxa ka tuntay, si xun ay u jirdishay. qaadimadii cusbeed ayaa aad la yaabtay. waxay tiri say wax u jiraan, bal maxaa dhacaya, maxaa saan u yeeshay? markaas ninkeeda ayaa yimaaday iyadoo aad u ilmeynaysa. labadii qaadimood iyo waxaa la geeyey booliiska arrintii baaris ayuu ku sameeyey. waxaa dhacday marka in macluumaadii iyo ninkeeda la yiri wax caddayn ama u haysaan inay cunugiina diileen. marka baaris la sameeyey waxaa la ogaaday sababta caruurtaasi ay u geeriyoodeen inaysan ahayn inay dishay shaqaalaha, laakiin in macluumaadii loo sheegay in caruurteeda iyada had kadib ay korsato aysan aaminin shaqaale dambe.